السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal kale hadaba muuqaalkeena maanta ayaa waxaan uga hadli doonaa habka ugu fudud ee aad bending ugu qaadi karto markii aad rabto in aad application soo degsato inta badan dhibaatadan dadku way qabsataa balse xal uma helaan hadaba aniga ayaa xalka u hayo fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay ee channelkan soo booqato waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe saarato gambaleelkan aad furato si ay ku soo gaaraan muuqaaladan halkan ku soo gudbiyo haddii aan u gudubno muuqaalkeena maanta marka hore Play Store ka aad tagaysaa Play Store ka markii aad tagto kabacdi uu gudaha ku keeno application-ka aad rabto inaad soo degsato ayaa ku dhufanaysaa kabacdi install aad dhahaysaa install markii aad dhahdo kabacdi bendingan ayuu dhahayaa mana iska qaadayo wax kale lama soo saari doono markuu bendingan dhaho waxaa rabtaa inaad ka qaado bendingan walibana adigoo isticmaalayo kaliya Play Store ka dhexdiisa aad isticmaalaysaa meel kale ma tagaysid qaybta kore ee iconka Gmail-ka kaaga muuqda aad ku dhufanaysaa marka qaybta ku dhufato kabacdi waxaa ku dhufanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay settings aad ka dooranaysaa qaybtan ay ku qoran tahay settings marka aad ka sii doorato waxaa ku dhufanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay network performance aad ku sii dhufanaysaa kabacdi waxaa ka sii dooran doontaa qaybtan ay ku qoran tahay app download performance aad ku sii dooran doontaa kabacdi marka qaybta ka sii doorato qaybtan haddii uu bending ku dhahayay waxay ku tahay over wavy only ay ku tahay balse waxa ka dhiganaysaa sida halkan ugu wada jeedaan oo aniga bii tahay over any network aad ka dhiganaysaa kabacdi dhan ayaa dhahaysaa kabacdi qaybta hoose haddana ay ku qoran tahay auto updates apps ayaad ku dhufanaysaa kabacdi haddana waxaad kasii dhigan doontaa qaybtan ay ku qoran tahay over any network aad ka dhiganaysaa kabacdi dhan ayaa dhahaysaa kabacdi waad ka soo laabanaysaa kabacdi waxaad tagaysaa application-ka aad rabto inaad soo degsato option-kaas waa option-ka koowaad haddii aad application-ka marka aad rabto oo ku dhufato kabacdi haddii uu ku soo dego option-kan ayuu kugu hagaagay balse haddii uu ku soo degi waayo waxaan ku tusayaa option kale muxuu yahay option-ka kale kadib waxaad tagaysaa option-kan kale waxaad tagaysaa settings-ka mobile-kaaga aad isticmaali doontaa settings-ka mobile-kaaga marka aad tagto kabacdi waxaad raadinaysaa apps ayaa raadin doontaa apps marka aad raadiso kabacdi waxaa ka sii dooran doontaa appska Play Store ayaad ka dooran doontaa Play Store-ka ayaa raadinaysaa Play Store-ka ayaa ku dhufan doontaa Play Store-ka marka aad ku dhufato kabacdi waxaad tagi doontaa qaybta ay ku qoran tahay permission ayaad tagi doontaa qaybta ay ku qoran tahay permission marka aad hesho kabacdi waxaa qaybtan haddii uusan ku ahayn qaybtan ay ku qoran tahay storage haddii uusan ku ahayn permission-ka allow haddii uusan ku ahayn wuxuu ku dhihi doonaa bending qaybta ayaa waxaa ka dhigan doontaa allow ayaa dhihi doontaa anigu hadda way ii tahay balse adigo allow kuma ahan haddii uu bending ku dhahayo allow ayaa dhihi doontaa waad ka soo laaban doontaa kabacdi waxaa imaan doontaa application-ka aad rabto inaad soo degsato application-ka aad rabto inaad soo degsato ayaa imaanaysaa kabacdi waad tijaabinaysaa haddii uu ku leeyahay still bending haddii uu ku leeyahay habka ugu dambeeya waa habka kaliya ee aad ku hagaagsan karto ama uu kugu furmi doono haddii uu kugu furmi waayo optionadii hore oo dhan option-kan waxaan si 100% u hubaa inuu kuu furi doono qaybtan ay ku qoran tahay iconka Gmail-kaaga ayaad imaanaysaa kabacdi waxaa kasii dooranaysaa qaybtan ay ku qoran tahay manage apps and device ayaad ku dhufanaysaa kabacdi markaa qaybtaas ay ku qoran tahay manage apps and device ay ku qoran tahay ay ku dhufato waxaa kasii dooran doontaa qaybtan ay ku qoran tahay update available ayaad ku dhufanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay update available markaa ku dhufato waxaa kuu soo bixi doona application-nada aad kasoo degsatay Play Store-ka markii hore inta uusan bending kuusoo saarin kabacdi ayuu kuusoo saari doonaa kuwa uu kaa rabo update kulli update ayaad dhihin doontaa markii update dhahato kabacdi back ayaa dhahaysaa back markii aad dhahdo kabacdi waxaa hubin doontaa inuusan storage-ka kaa buuxin haddii uu storage-ka mobile-kaaga buuxo bending ayuu ku dhihayaa wax kuusoo degayo ma laha balse haddii uu caadi ku yahay waa caadi fadlan haddii ay tahay marka ugu horeysay ee channelkan soo booqato waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe ii saarto gambaleelkan aad furato si ay ku soo gaaraan muuqaalada muhiimka ah ee halkan kusoo gudbiyo jaw saaxiibay